إن شاء الله bilaabi doonaa so recordingkiina waan bilaabay so okay haddaba framework aynu isticmaalaynaa waa maxay inteynaan horta waxaan kalaba ogelin framework aynu isticmaalayno from a ilaa z waxa weeyaan inaan horta samaynayno horta successionka marka hore aynoo create gareeyo anu waxaan kasoo bilaabayaa from daily to mataqaanaa lower time frame intrigeena so saasaynu ku base gareyn doonaa insha allah biidnillah marka create new session inoo dhe markan waxaan u bixinaynaa backtesting so qaabka loo isticmaalo waad garanaysaa waan u malaynayaa applicationka akoonkeena boqolkan iskama ahaado so assetkeena markaa euro USD iyo JBP USD maadaama isla qaadanay kuwaas baynu ku sameynaynaa iyo JBP USD da so waktiga ka warrama xilli maynu ka dhignaa ma labadii bilood oo u dambeysay iyo xagga idinku ka dhiganaysaan so anigu waxaan ka dhiganayaa marka waxaan odhanaynaa adigu kasoo qaad ilaa august kasoo bilow august kasoo bilow ilaa august mondaygeeda sitmarkii bisha kasoo bilow tusaale ahaan oo kale ilaa maa iyo maanta laga soo gaadhayo so inta ka dhaxaysa baynu backstring garaynaynaa okay inta haddaba soo kacaya markaa framework aan isticmaalaynaa waxa weeyaan waxaan kasoo bilaabayaa daily lower time frame dailygii waxaan kasoo eegaynaa daily biaskeena lower time framekeena waxaan kasoo eegi doonaa mataqaanaa middle time framekeena waxaan ka eegi doonaa mataqaanaa fair value gap plus SMT-deeni lower time frame waxaan ka eegi doonaa maxay entry modelkeenii ama inversionkeenii ama fair value gapkeenii ama breaker blockgeenii ama OB-geenii markaa shashadada iska qurxiso ama waxaan indicatorada xawas ka saari doonaa so almost screenkeygana waa kan so haddaba lacagteeda waxa weeyaan waa euro USD baan joognaa so dailygeedaan kaga bilaabaya markaa so dailygeeda maxaan ka filaynaa maalinkan so waxaad ujeedaa inuu yahay consolidation days inay tahay laakiin haddana bidixdan inayd ku jirto fair value gapkeenan oh shit ku dhacaynayo wax inta badan baakastikana waa lagu caajisaayey caajiska iska ilaaliya inta badan inaan in badan aamusnaano inaan in badan mataqaanaa aynu trade baadhbaadhno ka no murac qof kastaba dabkiisa hashita insha allah screenkeygana ma loo jeedaa okay so waxaad ujeedaan in mataqaanaa bidixdeenan uu ku jiro fair value gapkan markaa screenka inoo hagaagay bidixdeena waxaad ujeedaa inuu ku jiro fair value gapkan mataqaanaa bidixdeena inaga xiga sidoo kale waxaad ujeedaa in lacagteenii tradeki maalinka ka horreysay sorry maalinka ka horreysay inay tahay inside bar ama maalin mataqaanaa indecisiona oon labada dhinac dhanna u dhaafin so maanta aynu joogno sorry timeka waxaan ka dhigan doonaa timekan ilaabay timeka waxaan ka dhigan doonaa New York time baan ka dhigan doonaa timeka so marka waxaad ujeedaa in maalinkan markaa ay tahay maalin inside bara so maalinka ku xigtaa wixii dhici doonaa ma ogin marka waa iska garanaynaa markaa maalinkan si aynu isula gaadhno maxay maalinkani inoo trade dhaanta so almost maalinkan waa iska gebagebo mataqaanaa tradekan wuu iska soo maalinkan way soo xidhmaysaa marka one skip bay iska siin doonaa 30 somahan 17 Asianka baa furmay so Londonkeenii baa furmay imika okay so next daygii waa kan markaa next daygeeni waa kan so maalinkeeni maxay samaysay maadaama isniin inoo ahayd isniintii maxay samaysay isniintii waxay samaysay in previous daily highgii baa laynoo qaaday no way xitaa maalinkii dambena inoomay qaadin previous daily high iyo previous daily low toona inoomay qaadin lafteeduna waa inside kale ma arkaysaan si fiican looguma weliba aan soo dhaweeyey suga so maalinka ku xigtay waxaad ujeedaa inay tahay maalin inside ah
sorry sug asif calaamadan okay previous daily high qaaday marka ha so previous daily high qaaday so marka waxaan ka sugaynaa waa maxay waa reversal laba jeer ba reversal baan ka sugaynaa mar waa fair value gapka bidixda inaga xiga mar kalena waa candlekan walow eeg hadda eega meel baa intusaya intan waxaa dhex yaala maxay consolidation so consolidation kaas inaan ku fududaanin marka waxa weeyaan waa August mataqaanaa maalinkana waxa weeyaan 8 candlekeeni baa furmay imika so waxa weeyaan New York Timekii marka so New York Time maxaynu ka filaynaa sorry New York Time maxaynu ka filaynaa marka intaanan u gudbin horta 1 hour ka waa inaan dailyga soo 4 hour ka soo eegna so 4 hour waxaan u jeednaa in halkan inoo yaalo fair value gap mataqaanaa 4 hour fair value gapka 4 hour-ka waxaad inoo soo eegtaa euro USD JPBUSD sorry inay inoo samaysay wax SMT-ya so fair value gapkeenu waa kan so dhammaan waxa dhan waa inoo wada qaaday bidixda inaga xigay so I think so inaanay wax fair value gaabi jirin so halka ugu sarreysa waa maxay waa 9/18 August oo Monday ah so uma malaynayo marka in halkani 9 okay so halkeena marka maxaa taala SMT baa taala marka SMT 9/18 August wakad so halka maxay noo taala SMT baynu haysanaa so let's drop to 1 hour mataqaana 1 hour keena laftigiisa waxaa taala fair value gap keenan plus SMT so let's see 15 minute keena maxaa jira so 15 minute keena waxaa jira liquidity-ga la qaaday so 15 minute maxay noo yaala liquidity-ga la qaaday liquidity-ga la qaaday iyo OB candle-keeni so almost marka waa la taabtay OB-geeni banaankiisa lagu xidhmay so weli lama taaban OB-geeni waa maxay weli lama taaban so OB-geeni weli waa valid saacadan waa misadii waa 8:30 8:45 so news baa jira mise ma jiro ma ogin inagu wax news iyo wax jira iyo waxaan jirin toona ma ogin so inuu news jira iyo in kale waqtigaa sheegi doona so marka waxaan target garayn doonaa let's say 1 to 2 baynu target garaynaynaa marka tradekeena waxay leenahay open placed order may inaan place order oran so limit order baynu leenahay limitkeena waxaa la taaban jiray alt plus b alt plus b okay waa kan so limitkeyga waa kan so waxa weeyaan sell limit maaha buy sell limit ana limit order so price iyo wax buu doonaya lasoo koobi garay suga marka hore aan sanadaahdo alt plus b nagama daa maxaynu iska waalaynaaba waynu skip garaynaynaa dadna real time execution baan ka dhigan doonaa so waxaan ka dhigan doonaa 3 minute inuu dhaqaaqo okay so horta 5 minute kan eegaynaa sorry marka ugu horeysa in yaritaana ilaabi lianna 1 hour kan waxaan kasoo helnay mid kale so waxaad u jeedaa waa isku mid 1 hour keena waa laga baxay kan 1 hour keena laakiin 15 minute keena weli lagama bixin laguma soo laabay banaankiisa lagu xidhmay laakiin laguma soo noqon so 15 minute keena eegaynaa haddaynu 15 minute ka weynana maxaynu ka eegaynaa breaker blogger aynu ka gelaynaa markaa so hoos baynu uga soo degaynaa waa maxay breaker blogger aynu ka gelaynaa so laakiin balin lagu soo laabtay iyo in kale baynu eegaynaa OB-geena so waxaad u jeedaa inaan lagu soo laabanin oo laga dhaqaaqay 5 minute-kii so 5 minute-kana maynaan joogin inagu 5 minute maynu joogno markii halkan ku dhaqaaqay may so inagu waxaynu soo nimid markii halkan 8:35 meeday 8:30 waa kan halkaasaynu ku nimid 8:30 kana kana furmay baynu nimid so markaa mu ogin in mataqaana loo dhaqaaqi doono so laakiin maxaynu ka geli doonaa inagu breaker blogger ka raacaynaa marka so stable sina kan dhiganaynaa waxaanu dhiganaa above this high so 1 to 2 na waan target garanaynaa weli so 1 to 2 saacadana waa misadii okay waa 9:30 so wax mushkilaa ma jirto okay gudihiisa kusoo laabtay so weli banaankiisa lama breakerkaasi weli maaha breaker aan odhan karayna waa breaker dhacay weli breakerka laguma soo laaban waxaanu sugaynaa laba dhankii la sameeyo loo dhaqaaqo waxaad u jeedaa weli halkan inuu ku noqnoqonayso lacagtani okay hadduu breakerkeena dhacay waana 10 hadduu markaa tradekeenaasi uu yahay maxay ansax yahay so place the order initial balance-keena take profit-keena risk per trade-keena waa mise waa 1% baa risi garaynaa marka
so maxaynu risgaraynaynaa 1% baan risgaraynaynaa. So let's see wixii dhaca markaa. So let's see wixii dhici doona markaa. So wax mataqaanaa partial iyo break even toonana ma imanayno. Waxaynu doonaynaa in full partial ama full TB ama full stop loss intii layna siiyo ama layna siiyo. Maxaad u jeedaa markaa tradekeenu ugu horreeyey maxaa laynoo sameeyey waa win trade. So sababtu maxay tahay marka haddaba aan ku soo celiyo sababta uu tradekeena win u noqday iyo sababta uu loss u noqon lahaa haddii uu loss naga noqonayo. So marka ugu horreysa waxaynu ka soo bilownay dhayligeena. So saas ugu soo wada xidhay baan rabaa inaan hal mar dulmar aan soo sameeyo markaa. So waxaynu ka soo bilownay dhayligeena waxaynu nidhi previous daily high candlekeeni baa la qaaday hoostiisaa lagu xidhmay. So waa reversal candle. So maadaama reversal candle yahay bidixdeena uu fair value gap joogo waxaynu u daadegnay 4 hour-keena deetana 4 hour-keena maxaynu helnay fair value gap kan baan helnay. Fair value gap kan maxaa yaala waxaa taala SMT plus fair value gap. So maadaama SMT plus fair value gap taalo waxaynu sii eegnay haddana 1 hour-keena. So 1 hour-keena la mid buu noqday fair value gap baynu ka helnay plus SMT. So SMT da see lagu soo helay markaa halkan SMT dan high-ga aynu isla eegno bal mar kale si aad ila fahantaan. So imika waxaan maadaama aynu rabno inaynu salgarayno waxaynu soo helnay soo maaha inaynu dhayligeenu yahay candle seller aynu ama u saadaalin inuu noqdo candle seller baynu soo helnay. So markaynu nimaadno lower time frame-keena ama middle time frame-keena sorry aan idhaahdo waxaynu ka eegaynaa waa maxay waxaynu ka eegaynaa SMT sare inay dhacdo li'annu maadaama rabno inaynu salgarayno dee soma waa inaan helnaa SMT kore. So SMT kore sidaan ku helay markaa waxaan ku helay halka waxaad ujeedaa euro USD candlekii 9 August haddaad xagga timeka hoose eegtaan 18 August maalin isniina sagaalkii candlekii furmay 9 ama afartii galabnimo candlekii furmay haygiisii way ka kor martay euro USD so markaysaan so waxaan la eegay JBP USD dan la soo eegay. So JBP USD saan usoo eegnay waxaynu nidhi candlekii sagaalkii furmay May. So candlekii sagaalkii furmay ama afartii furmay waa kan so kamay kor marin mataqaanaa JBP USD. So JBP USD kamay kor marin soma laana maadaama aad euro doorateen anigu euro idinla baakistin garaynay. So laakiin JBP USD waa kan iyadan intriga halkan u yaalay fair value gap plus SMT welibana tii ku fail garowday baa qurux badan oo intrigeedu uu very high yahay. So marka maadaama SMT dan helnay candlekii 4 furmay waa kan ama 9 furmay iyo New York Times ka furmay waa kan 18 August haygiisii uu ku fail garowday inay euro USD JBP USD ka kor marto laakiin euro USD maxay samaysay way ka kor martay iyadu. So mar aragtaan euro USD way ka kor martay. So that means halka maxay noo taala SMT baa inoo taala. So mar haddii halka SMT inoo taalno maxaynu eegaynaa fair value gapkeena waan haysanaa SMT-diina waan haysanaa waxaynu eegaynaa lower time frameskeena kale wax kasii helno beesha sii marinaynaa laakiin cala duul baad 15 minutes u aadi kartaa maadaama 4 hour ka heshay laakiin si analyze ka usii qurux bato ama refining aad usii samayso waxaad sii eegi kartaa lower time frame the next time frameskiisa. So 1 hour kaas sii eegnay 1 hour kan waxaynu aragnay in isku mid yihiin fair value gap plus SMT-di. So 5 minutes ka waynu kasoo habsaanay oo intriga xilligeenu nimid wuxuu ahaa intrigo kasoo baxay kii 5 minute-ka kasoo baxay buu ahaa. So 15 minutes laakiin nidhi maadaama 4 hour ba uu yaalay 4 hour kan ku base gareynaa intrigeena. So 4 hour keena waxaynu rabnay in laynoo yimaado OB candle-keena laynagu soo laabto laakiin laguma soo noqon oo maxay suuqii price-ki uu ka daatay. So maadaama uu ka daatay price-keeni waxaynu ka galnay inagu breaker blogga stop-loss halkan dhiganay breaker-ka high-giisa aynu dhiganay maadaama OB candle-keeni uu inaga fail garoobay inaynu ka raacno. So trade-ka wax su'aala so waan ka sii socdaa. trade-kaas wax su'aala okay way ridwaan wuxuu yidhi wax su'aala ma hayo isagu. So haddaba waan ku soconaya markaa the next day haddana markaa. So anigu New York baan trade garayaa badanaana waxaynu baakistin garay doonaa New York. So London-kana maalmaha dambe ku dari doonaa haddaad London ka xiisaynaysaan. So laakiin maalkii u dambeysay maadaama New York u badnaydeen
so anuna New York baan backsitting garayn doonaa. Okay, next day baynu isla imananaa markaa. So next daygeennii maxaynu aragnaa? Previous daily low baa la qaaday, so banaankiisa ma lagu xidhmi doonaa ha mise maya? So waqtigaa sheegi doona halka lagu xidhmi doono marka. So waan belay garayn doonaa ilaa next dayga la gaari doono. Okay, maalinka ku xigtay baa furantay. So waa maxay? Still waxaan ideadeeda maxay ku base garaysan tahay? Sell bay ku base garaysan tahay. oo waan sii sell garayn doonaa. So 4 hour keenan imanaynaa. waa imisa saacaddu waa imika waa Asiankii. So dhaafi karna suguna warkaanimaada welibana. So Asiankii weeyaan. New York Londonkiina wuxuu ka bilaabmayaa inkuu furmay Londonkiini 2. So Londonkiina halkaasuu ka furmay. So maadaama aynu selgaraynayno waxaan rabnaa in laynoo yimaado fi 1 hour fair value gap keenan 4 hour keenana waxaa inoo yaala. So 4 hourka kan sare un baa jira. So 4 hourka fair value gapkaa sare ayuun baa jira xagga 4 hourkana. So bal labadaba kii la geeyo baynu eegi doonaa. So 1 hourkeygii maxaa dhacday? Okay, fair value gapkii 1 hourkaa la yimid. So waxaan eegaynaa JBBUSD may ka kor martay haygii 19 August la sameeyey weliba 19 ka furmay. JBBUSD maxay ka yeeshay? So waynu eegaynaa JBBUSD maxay samaysay way ka kor martay 19 August haygiisii way ka kor martay waa kan. So ma jeedaan maadaama still sell garaynayno anigu Londonka badanaa nacabahay price actionka Londonka samaysma. waxaan jeclay badanaa formationkii Londonka dhacay inaan trade ku qaato. So marka Euro USD maxaynu haysanaa? waxaynu haysanaa fair value gap plus SMT baynu haysanaa. So markaysaan so fair value gap kigana waa kan SMT deedina meedahay. So 19 August waa kan maxaan soo qaatay waxana. So waa kan 19 August waa kan. So SMT deedu waa tan. So maadaama aynu 1 hour ka haysano let's see 5 minute kanu ka eegaynaa marka. So 5 minute keygii waa kan. So 5 minute liquidity la qaaday ma yahay? So liquidity qaaday waa kan. So dhulkan waa imsadii 3 baa la qaaday liquidity-ga. So markaasi kan break kan baan ka raaci doonaa marka. laakiin ma qaateen actually trade noocan ma qaateen anu shakhsiyan laano arkaysaan mataqaanaa laba shay oo uu diidaya maxaad arkaysaa in 3 baa la sameeyey manipulationka soo markaysaan. So markii manipulationka 3 la sameeyey haddana mar labaad baa la sameeyey 3 4 haddana la sameeyey. So haddeerna waa maxay? waa 4 waxa weeyaan 455 weeyaan imika xilligan uu maraya almost wuu sii dhamaanaya kilozonki Londonba oo waa 5 halka haddaan one more candle 5 minute aan sii daayo kilozonki London wuu dhamaaday oo wax tirado iyo furani meesha ma yaalo. laakiin haddana waynu iska eegaynaa inaku maadaama aan hadda trade ma qaadanayo mana gelayno. laakiin maxaa dhici doona see loola macaamili doonaa baan eegaynaa marka. maxaa dhacday in price-keygii kor loo flip gareeyey. So stop-loss in case dan geli lahaa trade-ka caynkana arla okay trade noocan aan qaadanaya waan ku fududaanay haddana odhan lahaa stop-loss halkan u ahaan lahaa. So maxaa dhici doonta marka? ma TB ba mise waa stop-loss? So waa 6 7 maxaa dhacday in la jabshay. So 4 hour-keyga markaa soo eegaya fair value gap-keygii imika waa maxay? maxaan soo diyaarinaynaa haddeer? waxaan soo diyaarinaynaa intrigeeni intrigue waxaan soo diyaarinaynaa haddeer New York. So waxaan iska dhigarayo intrigue New York haddeer isku diyaarinaynaa marka. waxaa la sameeyey New York-geeni 4 hour-keeni baa la dhex keenay. So markaysaan so daily candle-keeni haddana soo eegno daily candle-keeni wuxuu sameeyey reversal day baynu ka rajeynaa inay noqoto. So imika waxaad arkaysaa in London oo dhan kor loo soo waday. So New Yorkna in la reversal gareeyo baynu ka rajeynaynaa. So 4 hour-keeni waa kan weli muu furmin candle-kii 8ku waa 6 waxaa la joognaa 6. So let's say 7 and 8. So 8 itaanan sii deynin and 8 aan yara tashiisho si haddaan 8 sii daaya uu iga wada dhamaaday macnaheedu way okay. haddaba waa kan markaa. So 8 baynu joognaa imika. waxaan la eegaynaa markaa waxaan la eegaynaa kan waxaan la eegaynaa Euro USD maxay samaysay. So 4 hour-keeni waa kan horta kusoo laabo 4 hour-keeni waa kan iyo 4 hour-keeni ahaa fair value gap-keeni 4 hour-ka ahaa
baynu eegaynaa SMT ma la sameeyey, so waxaynu eegaynaa 13 August maxaa laga yeelay JBBSD-ga. So 13 August maxaa laga yeelay, so waa kan 13 August waa laga kormaray. JBBSD-du maxay samaysay, way ka kormartay. Eurona maxay samaysay 13 August way ku feelgarowday in ay ka kormarto. So halkan still waa maxay, waa area, laakiin maxay naga sarreeya, eeg hadda maxay naga sarreeya, fair value gapkan baa inaga sarreeya, fair value gapkan baa inaga sarreeya. So wayn eegaynaa markaa, laakiin haddana 13 August, so weliba meel kale kasii fiican haddaynu heli karana SMT kala taallo. kanoo kale imsadu furmay 9 buu furmay, so 9 bay soo eegaynaa. 9 lagama kormarin, so 9 way ilaashan tahay, laakiin 13keedii baa laga kormaray. Okay, so intana markaa SMT inoo noqonaysa iyo fair value gapkeena. yaa xiliga kusoo biiraya, qofkan waaye cabdiqaaliq maxamed qatar, ma garanayo qofkana. tiimkeeniba cabdiyare ma jooga cabdiyare, ha, so markaa qofkan kale ma garanayo kusoo biiraya. Okay, so waa kan, maadaameynu haysano 4 hourkeenii SMT-deenii haysano 15 minutekeena, waxaynu ka eeganaynaa waa maxay liquidity sweep plus mataqaana in banaanka sila nagu xidho. So waxaad moodaa 8 markuu furmay, maxaa lagu furmay, wuxuu ku furmay manipulationkan korka, so maybe news baa jira. So xaggana newska kala eegaynaa 17 August wax news maba jiraba ayuu sheegaya calendarkiisani. So wayn eegaynaa marka, let's say 8:30 bayn eegaynaa marka iyo wixii dhaca marka. Okay, 8:15, okay 8:15, 8:30 maxaa dhacday, waxa news baa jiray, khasab news baa jira. so markaasaan waayo 8:30 khasbiya news baa jiraya, laanno waxaan ka shakisanaa laba shayba. horta kanalka noocan de kan normala ma ahan, marka ugu horeysa inuu 8 kusan u furmo keligii wax normala ma ahan, garanaysaa. marka 4 hourka fair value gapkii naga sarreeyey baa la geeyey maadaama news waxan yahay. so marka haddaba qaacidadii aan idiin sheegay maalinkii dhawitoole baynu ka eegaynaa kenan. so 8:30geeni halkan maxaa yaala 19 August baynu eegaynaa marka JBBSD maxay ka yeeshay 9 on 19 August. JBBSD-du kamay kormariso, waa safe marka la joogo JBBUSD-da, waa maxay, waa safe. sidoo kalena maxaa safe, wanka kii furmayna waa safe. so labadaaba kamay kormarin mataqaana JBB-du, so wankana way ka kormartay, 19kanna way ka kormartay. so laba double SMT weeyaan marka, so double SMT baa taalla. so 15 minutekeenu dib inoogu celi, hadduu CPI waxa igu one direction yahay baa inoogu qaab darano, anugu nacbahayna waa taa. so waxaynu sugaynaa waa maxay, maadaama liquidity-ga laynoo qaaday, kanalka liquidity-ga suga weliba calaamadina intaan afka kaba hadli lahaa. maxaana naga dhigdhigarays, naga dhigdhigo. so liquidity-ga laynoo qaaday waa kan, liquidity-ga laynoo qaaday waa kan, so kanalka inoo qaadayna ma yahay waa kan. so waxaan rabnaa in kanalka hoostiisa laynoogu xidhmo, in kanalkan hoostiisa laynoogu xidhmo ayn rabnaa. so suuqa wuxuu sameyn uu ka yarayn eegi doonaa insha allah. so let's play it, u play garayn doonaa. okay, saacadda banaanka loogu xidhmayna waa imisadii, waa 10kii. so tradekeena halkaasaynu ka qaadanaynaa marka. maxay waa manipulation upside oo kor baa laynoogu manipulate geliyey. stoplosskeena halkaasaynu dhigan doonaa. take profit keenuna waa maxay, waa 1 to 2 markaa maalin kasta waxaynu ku ballansanay inaan maanta anu 2 trade oo baagtitina sameeyo. so labadeeda trade maxaa ka dhici doona, so niyo qaabka loo gala ma aqaano baalahan baalkan. so waxaan samaynaya markaa place orderkaygaas ka sii odhanaynaa, so hadduu kusoo noqon waayo iyo haddii kalaba. let's see insha allah wixii uu inaga yeelababa qaladkaan sameeyey maad garanaysaan. qaladkaan sameeyey qof sheegi karayaa ma jiraa, halkaa qalad baan galay, qof ii sheegi kara qaladkaan galay ma jira. wakaas
so waan degdegnay waxaan inuu candlekii xidhamay baan mooday so candlekii aanu xidhamay baan tradekii iga dhigay so waana almost minus b igu hayaa wayn eegi doonaa bal wixii dhaca marka halkaa khaladkaasaan gallay marka khaladkaana aamin uu soo qabtay okay alxamdulilah haddeer buu markaa inoo yahay so imika haddaynu stop loss qaadanayno khalad analysis ku jirnaa haddaynu take profit qaadanana imikaynu analysis saxa ku jirnaa so saacadeedana waan eegi doonaa haddaynu stop loss qaadanay iyo haddaynu take profit qaadanababa okay next day baa inoogu furatay ma arkaysaan so tradekaasi weli wuu furan yahay so next daygii kale inoogu furmay oo waa weekgii kale welibana new weekly open gapkii baa inoogu furmay so ma arkaysaan new week open gapkiisii baa inoogu furmay so maxaanad ujeedaan waxaan ujeednaa in reversal dhacay oo halkan waxaana naga dhaliid gareeyo waxaad ujeedaa in reversal dhacay previous daily lowgii la qaaday previous daily lowga la qaaday oo banaankiisa gudihiisa lagu xidhmay so that means waa reversal oo candlekeena candle ku xigaa wuxuu noqon doonaa candle bullisha so laakiin tradeka aynu galnay stop loss iyo take profit midoo waa inuu ina siiyaa welina overnight trade way